wararkaani ka helayno wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax gaari lagu xiray. gaariga ayaa yaal meel u dhow Shaleema Soomaaliya waxaana la sheegay in shakhsigii qaraxa ku xirayay la arkay oo caruur gaadiidka caruur halkaasi ku ciyaaraysay ay aragtay iyada oo gaadiidkaasi uu ku xirayo walxa qarxa. waxaa sidoo kale la sheegay in caruurta dhaqda gaadiidka ay ku soo wargeliyeen dad halkaasi ku sugnaa iyaga oo dadka markii dambe ciidanka ammaanka u sii gudbiyeen. waxaa suura gashay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigaan ruuxii gaariga qaraxa ku xirayay sidaasna booliisku ay ku qabteen iyada oo gacanta lagu hayo shakhsigii gaariga qaraxa ku xirayay. sida wararku ay sheegayaan ayaa la sheegay in gaariga uu qarxay mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi. gaariga waa qaraxaasi gaari ee ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama. ciidanka booliiska ayaa xarunta dambe baarista ee CID waxay u kaxeeyeen shakhsigii la qabtay ee lagu arkay isaga oo gaariga qaraxa ku xiraya. Muqdisho ayaa maanta kaliya waxaa ka dhacay laba dhacdo oo kala ah nin la sheegay in uu shabaab ka tirsanaa oo isgoyska Bakaaraha lagu toogtay kadib markii uu dhaawac u geystay askari ka tirsan ciidanka booliiska. waxaa la sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan kuwa dowladda ciidamo booliis ah oo kamid ah kuwa suga ammaanka suuqa Bakaaraha inay toogasho ku direen ninkan oo la tilmaamay in uu dhaawac u geystay askari ka tirsan ciidanka booliiska oo ku sugnaa isgoyska suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. waxaana ciidanka markii ay maqleen rasaasta uu askariga ku dhaawacay kadib ay soo aadeen isgoyska suuqa Bakaaraha oo ay dhacdadu ka dhacday. waxaana kadib xigay rasaas in ay ku fureen shakhsiga hubeysnaa ee dhaawacay askariga booliiska ah halkaasina ay ku toogtaan. ciidanka ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa ka qaaday halkaasi meedka shakhsiga ay toogteen iyo dhaawaca askariga ka tirsan ciidanka booliiska. saraakiisha hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin weerarka waa dhacdada ka dhacday suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo qaraxa gaariga lagu xirayay ee qofkii ka dambeeyay sida booliisku iyo dad deegaanka ah ay sheegeen lagu qabtay wadada Maka al-Mukarrama ee Muqdisho. gaadiidka ka dhex shaqeeya Muqdisho iyo magaalada Jowhar ayaa maalinkii labaad shaqo joojin ku jira kadib markii amar ka soo baxay maamulka Hirshabelle shaqada looga joojiyay. gaadiidkan ayaa lagu eedeynayaa in ay amar ka soo baxay maamulka Hirshabelle ay ka hor yimaadeen kadib markii laga dalbaday in ay qaadaan dad aad u fara badan oo loogu talagalay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ay ugu tagaan madaxweynaha Hirshabelle oo ka soo laabtay safar dibadda safar magaalada Garowe uu ku tagay. laakiin gaadiidleyda ayaa diiday in ay qaadaan dadkaasi iyaga oo markii dambe la amray inaanay ka dhex shaqeyn Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe. iyaga oo arintaas cabasho ka ah ayay maanta magaalada Jowhar kula hadleen warbaahinta. waxaan doonaynaa marka inay naga qaadaan culayska ay nagu dul hayaan. dadkan waa dad iska baahan oo masaakiin oo baabuurtan ku shaqeysto ku xamaasha haddii 3 biri iyo wax ka dambeeyo meel uu ku ogyahay xirigu aan la ogeyn si xiraadaan waxaa laga yaabaa in dad mataqaanaa baahi u qabay oo baabuurtoora waxay soo shaqeyso ku noolay ay u baaba'aan amba mataqaanaa waxay cunaan waayaan dadkii loogu xamaali jiray. waxaa ka mid ah gaadiidkan gobolka Shabeellaha Dhexe ka shaqeeyaan gobolka Banaadir aan tagnay waxaa amaran lagu soo rogay inaysan gaadiidka oo shaqeey karin. waxaan ugu soo rogay maamulka gobolka maxaa ila dhibaatada jirta waxa ugu horeysa ka mid ah maamulka doo gaari wato gaariga amnigiisa wax sugaya malaha wax la isku haysto waxa waa ilaa wax ka bilaabta buuqa eelboorka madaxweynaha waara soo degay eelboorka la aadaal lahay culays meesha ugu badan oo ka bilaabto oo meeshaas baabuurka eelboorka aado inuu safar galo ma laga yaabo ku adag tahay. dhibaatadana haysa taas ka mid gaadiid badan maqan amnigeena wax sugaya male boosteeja siyaas daraadeena lagu xiri dhaqaalaan bixinaa anaga mali 200 jidka ku bixinaa boosteeja xiritaan lagu soo diray shacabku waa kan horteena wada tuurihiin sidoo ku bixilay malaha maanta waxa la sameeynaa moota la raacay balcada lagu tagay mootada kadib baabuur qofka qaadana qarashka ku badana kulleed waxaan ku codsanaynaa
in arrintan wax laga qabto. saaki waxaan u socday waxaad jawaab boostaajada joor waxaan u socday magaalada muqdisho waxaad dhacday maanta kula saddex in adig wax gaadiidoo dhaqaaqabo inaad la waayo. qaar ka mid ah gaadiidleyda ka dhex shaqeysa muqdisho iyo magaalada jowhar oo amar ka soo baxay maamulka hirshabeelle shaqada looga joojiyay kadib markii iyagu ay diideen inay daabulaan dadweyne soo dhaweyn lahaa madaxweynaha hirshabeelle iyo wafdigiisa oo markaasi kasoo laabanayay magaalada garowe oo ay shir uga qayb galeen. roob khasaare nafeed sababay ayaa ka da-ay deegaan ka tirsan gobolka bari ee maamulka puntland. cabdiqaadir maxamed ayaa faahfaahinaya. saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa roobka guga uu ka da-ay deegaano ka tirsan gobolka bari puntland kaas oo khasaare nafeed iyo mid hantiyeed geystay sida ay sheegeen dad ku sugan deegaanada uu roobka ka da-ay. deegaanka waaciye ee gobolka bari ayaa ka mid a deegaanada uu saameynta ku yeeshay roobka guga waxaana maamulka deegaankaas ay sheegay in roobka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed. gudoomiyaha deegaanka waaciye ee gobolka bari puntland isaaq aadan xasan ayaa sheegay in roobka ay ku geeriyoodeen saddex ruux oo caruur ah sidoo kalena uu qaaday xoolo fara badan oo ay lahaayeen dad reer miyi ah oo xoolo dhaqata oo ku nool deegaanka waaciye ee gobolka bari. ilaahay ummadda waa qaboojiyey roob fiican baa muxuu ahaay dahay roobkuna wixii waaciye bari ka xiga buu u badan yahay xagga muxuu ahaayey karkaarka iyo xagga waqooyiga buu u badan yahay wixii bari waaciye laana ka xiga dhinaca xagga qardhood roobku aad buu u yar yahay marka alxamdulillah rabbil roob fiican baa dahay dhibaatooyin yaruna waa dhexeen oo waxa walba nusqaanteed leh meel degmada waxay hoos timaada oo tuulo qiyaasame toga ayaa roobki wuxuu kula tegay maxaa reer dhowr reer buu kula tegay aduu dad badan baa xoolihii ay ka leedeen oo ka dhamaadeen waxaa ugu darnaa hal reer baa waxa uu kala tegay saddex caruura iyo xoolahoodii dadka waxaa u kala hay qaar buu xoolo kala tegay qaar buu dad kala tegay laakiin masiibada ugu badan waxay reerkaas oo saddex wiil uu kala tegay saddex wiil meydkooda insha Allah soo helay waaciyaan lagu aasay in khasaaraha ugu weyn intaasi ahayd. si kastaba maalmo ka hor ayaa ahayd markii roobka guga oo ka da-ay magaalada hargeysa ay ku geeriyoodeen 6 ruux 9 kana ay ku dhaawacmeen kuwaas oo qaarkood oo kusoo dumeen guryihii ay deganaayeen ee magaalada hargeysa. wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo gaar ahaan xarunta gobolkaasi ee Garbaharey waxa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda uu ka dhacay deegaano dhowr ah oo ku xeeran xarunta gobolka Gedo ee Garbaharey. al-shabaab ayaa la sheegay in lagu weeraray dhowr saldhig oo ay ku lahaayeen degmada Garbaharey ee gobolka Gedo waxaana dagaal iska caabinay kala hor yimaadeen ciidanka dawladda oo garab military ka helaya kuwa Ethiopia walkaasi ka qarxay iyada oo muddo saacadaha dagaalkaasi uu socday. wararka hadda aynu helayno waxa ay sheegayaan dagaalka si goos ah uga dhacayo deegaanadii uu ka dhacay qaarkood. laamaha amniga ee gobolka Gedo iyo maamulka gobolkaas oo aan xiriir arrintan kala sameynay ayaa suuragali weysay inay nala hadlaan waxaana la sheegayaa in dadka deegaanka goobaha uu dagaalku ka dhacay ay isaga barakaceen kadib markii saaka ay xabadu ka bilaabatay. al-shabaab ayaa la sheegay in dhowr deegaan ama dhowr saldhig oo ay ku lahaayeen deegaanada ku dhow degmada Garbaharey inay isaga baxeen kadib markii ciidanka Ethiopia iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ku roqaansadeen deegaanadaas iyaga oo fariisimo ka sameystay ciidamada dawladda saldhigyadii ee lagala wareegay ururka al-shabaab. xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ayaa la sheegayaa in rasaas goos ah hadda laga maqlayo iyada oo la soo sheegayo in al-shabaab meelo ka fog saldhigyadii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin. wixii ka soo kordha wararkeena dambe amriyadurisala.com ayaad ku dhageysan doontaan. muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay wadanka Koonfur Afrika. warbixin la xiriirta Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa. koox burcadbadeed Koonfur Afrikaan ah ayaa waxa ay gudaha dalkaasi ay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ka ganacsata dalkaasi xilli uu ku jiray hooshiisa shaqo. kooxda ayaa ku weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Raabi Sheekh goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada East London ee wadanka Koonfur Afrika.
kooxdii burcadka ahayd iyo muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay inuu dhex maray muran xoogan taasoo keentay in burcadka ay dilaan muwaadinka Soomaaliyeed iyagoo intaasi kadib goobta ka baxsaday. waa qofkii labaad oo Soomaali ah oo lagu dilo dalka Koonfur Afrika tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana maalin ka hor magaalada Cape Town lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Xasan Cabdi Maxamed Xasan Bile. dalka Koonfur Afrika ayaa sanadkan 2019 waxaa kusii kordhaya dilalka loo geysanayo Soomaalida ku ganacsata, waxaana weli jiran cid isku dayday inay ka hortagto dilalkaas ee labada dal ee Soomaaliya iyo Koonfur Afrika. warkaas duhur wuxuu idinkaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. dowladda Iiraan ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka in uu ka sii darayo xaaladda aan la aqbali karin ee ah xiisadda u dhaxeysa labada dal, waxayna sheegtay in Tehran ay muujinayso isxakameyn inkasta oo Washington ay ka baxday heshiiskii nuclear-ka. xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii toddobaadyadii dhowaa Mareykanka ay maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka iyo diyaaradaha bambaanooyinka culus qaada ee xariijin 52 ay geeyeen khaliijka, iyaga oo la tuhmayo in halis ay kaga soo socoto Iiraan. xiisadda kasii dareysa ee Mareykanka waa mid aan la aqbali karin, waxaa sidaasi yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif oo wada hadallo u jooga wadanka Japan. waxaan muujinaynaa isxakameyn inkasta oo Mareykanka ay ka baxeen heshiiskii nuclear-ka, ayuu Zarif yiri. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in Tehran ay ka go'an tahay inay heshiiska ay sii wado isla markaana qiimeyn la sameeyay ay muujinayso in Iiraan ay u hoggaansamayso heshiiskaasi. hadalka Javad Zarif ayaa yimid maalin kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay amartay dhammaan shaqaalaheeda laga maarmi karo inay ka baxaan safaaradeeda Baghdad iyo qunsuliyadda Arbil ee dalka Ciraaq, xilli ay sare u sii kacayso xiisadda ka dhaxeysa Mareykanka iyo Iiraan, taas oo sare u sii qaadaysa cabsi dagaal. Trump ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in Iiraan ay doonayso in wada xaajood ay la gasho Mareykanka sida ugu dhaqsiyaha badan.